ummadaha dib u socda calaamaadkooda waxaa ka mida bay dhahdeen cadam alistiqraar الsiyaasi politically dad degan maaha waa muran iyo dood iyo qarshajac maalin kasta taagan dunida aynu maanta joogno waxaynu ognay inaynu ku jirno afqar duwal dunida inta u faqariisan halka ugu dambaysa si kooban haddaan u tilmaamno adduunka bini aadamka ku jira munaafasa wuxuu ku jiraa loolan beratan uu bini aadamku u beratamayo kala sarrayn ummadaha qaar waa daaleena waa istaageen socodkaba waa gabeen ummadaha qaarna gadaal bay u socdaanba xagga loo beratamayo iyagu uma socdaane dib bay usii socdaan oo ummadaha dibka u socda calaamaadkooda waxaa ka mid ah atafakuk inay sii burburayaan oo sii kala googo-ayaan halka dunidu ay isku soo ururaysee dad badni iyo wax la raadcaynaya kuwana waa sii kala googo-aan ummadaha dib u socda calaamaadkooda waxaa ka mida bay dhahdeen cadam alistiqraar الsiyaasi politically dad degan maaha waa muran iyo dood iyo qarshajac maalin kasta taagan ummadaha dib u socda waxaa ka mida bay idhaahdaan kama warramaan mustaqbalka iyo waxay damacsan yihiin 5 sano 10 sano 20 sano soo socda xaggaynu rabnaa inaynu degno xaggaynu gaadhaynaa ee waxay ka warramaan inta badan wixii la soo maray berri baa saasi dhacday yacayn taariikhda horey ka warramaan laakiin ma odorosaan waxa soo socda xaggaynu u soconnaa su-aashu waa su-aal adag haddii la yidhaahdo mustaqbalka iyo sida loo dhisayo iyo ninka mutacalimkii dowrkuu ku leeyahay dunida aynu maanta joogno waxaynu ognay inaynu ku jirno afqar duwal dunida inta u faqariisan halka ugu dambaysa dhowrka waddan ee ugu dambeeya ayaynu ku qorannay marka laga warramayo dunida mutakhalifka ah dadka dib u dhacay markay ka warramayaan xagga u dambaysa ayaynu ku qorannay marka innagu kuwa gadaasha u socdaynu ku jirna asliyan ee kuwa hore u socda kuma jirna baan odhan karaa in ummadi ay hore u marto hore u socoto ama xadaara civilization inay dhisaan waxay ku xidhan tahay bay idhaahdaan ummaddaasi intay bini aadamkeeda qadariso dadkeedu intuu mudnaan leeyahay qofkeeda inta ay tababarto walidaalika ummad kastoo qofkeeda ama bini aadamkeedu uu burburaa waa ummad xadaaradeeduna burburayso dadnimadeeduna burburayo idan miqyaaska koowaad ee bini aadamka lagu ego waa qofka bini aadamka ah qofka bini aadamka intee ixtiraam loo hayaa intee service loo samaynaya intee aqoon la barayaa intee dadnimadiisu ay tahay waxa systemku uu ka warwarayo ummadu markay sii burburayaan dadkooda o dhan baa burbura siba waxay idhahdaan 3 group hadday burburaan ummaddu way baaba'daa bay idhaahdaan haddii bay idhaahdaan hooyadu ay burburto oo jahli iyo aqoon darro iyo dhibi qabsato ka labaad waxay idhaahdaan hadduu macallinku jabo waa labada meelooda ugu adag ee dhallinta barbaariya yani matalan maanta dowladda la yidhaahdo way ugu waa number 1 ay ku qoraan dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyay waa Finland Finland maxay samaysay elementary schoolka dugsiga hoose master qof ka yari ma dhigo ma aha jaamacad ka warramayna iyo waa dugsi hoose qof kasta oo macallinka ah waa inuu master degree sitaa ma badna xisaska ay dhigaan laakiin dad aqoon-yahana dhigaa toddobaadka oo dhan 20 xis ardadaba la siiyaa 20 xisood bay toddobaadka oo dhan qaataan laakiin dad aqoon-yahana oo loo tababaray mushaharka macallinku wuxuu ku dhadhowaya mushaharka wasiirka sida daraaddeed waa dabaqada sare ee mujtamacu ka mid yahay ummaddii qadarisa dadkeeda soo saaraya ummad hore u socotay noqotaa laakiin ummadda hooyada iyo gurigu burburo
uu burburo macallinkeeda uu burburo bay dhahaan dadka qudwada u ah modeliska dadka u ah dadku uu ku dayanaya aanu dad sax ahayn waa umaan hore u soconaynin shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga e-dahab